xil wareejintan labadan agaasimo ayaa ka dhacday wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo xilka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee waaxda maamulka iyo maaliyadda iyo agaasimaha cusub ee waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska. agaasimaha daryeelka caruurta Khadra Axmed ayaa ku amaantay shaqo wanaaggiisa iyo agaasimihii hore guddoonsiisayna hadiyad ay ku sharaftay maadaama uu kaalin wanaagsan ka qaatay shaqooyinka wasaaradda. runtii waxaan halkaan maanta aan uga hambalyeynaya oo agaasimihii maamulka Cabdirasaaq runtii muddo badan nala soo shaqeynayay ahaa qof naga mid ah ma dhihi karno mataqaanaa kama xumaan karno oo wixii way dhaceen mana soo noqon karto runtii laakiin wuxuu ahaa agaasimo firfircoon oo aan runtii wasaaradda wax badan si dhow iyo si dheerba noola shaqeynayay. waxaan leenahay meesha tagtay Allah subhanahu wa ta'ala inuu ku magaciisiyo meel khayr qabta kaaga dhigo. waxaan kala soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub asaga laftigiisa inuu asaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala asagana agaasimo khayr qaba nooga dhigo oo runtii meesha shaqadii ka sii socotay uu ka sii anbaqaado. waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay ka wax ahaan annaga waxaan ugu talagalnay maadaama uu agaasimo firfircoon uu ahaa in aan maanta halkaan maxay tiigi hadiyar yar wasiirku nagula guddoonsiiso. agaasimihii hore waaxda maamulka iyo maaliyadda Cabdirasaaq Xasan Faarax ayaa soo dhaweeyay agaasimaha cusub kuna wareejiyay xafiisyada maamulka iyo maaliyadda wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska. waxa weeye farxad aan ku faraxsanahay shaqaalaha iyo jecel inaan wasaaradda ka wareegayo xirfad siyaasadeed iyo murugo meesha xuduntayda ay taallay oo aan 8 sano ugu dambeeyay ka shaqeynay aan maanta aan ka tagay taas waxay u noqonaysaa murugo shaqaalaha aan isbaranay oo aan taas la shaqeeyay 8 sano ugu dambeeyay aan shaqeynay murugo ay tahay maanta ma garanaysa si fudud inaan garanaysaa runta haddii marka laga hadlo adduunku xilku waa wareegto maalin meel la taagantaa hadii ka dhalay xiblood kadib anigu meel kale taagan ama dhici aan wasiir baa dhici karta waxaan dhici kada maanta meesha taagan inaan ka shaqeeyo marka taas waxay tusaysaa dabeecadda dawladnimo ay leedahay حقيقي waxaan aad iyo aad u ballaaran soo jeedinayaa shaqaalahaydii ururda badnaa oo 8 sano garanaysa ugu dambeysay garanaysa aan wada shaqeynay anigu markasta waxaan ka mid ahay wasaaradda horumarinta haweenka iyo qoyska inay kama fogay waxaan waxa weeyaan inuu sheegaya inay ka mid ahay xilli kasta iyo waqti kasta ay la soo hadli karaan wixii caawinaada iyo wixii saacidaada anigu aan diyaar lahay markasta waaga waxa oran jiray anigu ma garanaysa ka mid ah haweenka Puntland wali haweenka Puntland ma ka mid ah. agaasimaha cusub Axmed Xariir ayaa u mahadceliyay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo dhammaan maamulka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska sheegayna in uu halkaas ka sii wadi doono shaqo wanaagsan ay dhex mari doonto. shaqadan kuma cusbin waxyaabo badan baan ka soo shaqeynay waaxda maamulka oo hadda lagu wareejiyay waxaan khibrad u leeyahay oo muddo 3 sano aan ka shaqeynayay maantana farxad bay tahay inaan sii figay aan ku darsanayo in agaasimihii saddexaad aan noqdo oo madaxweynaha dowladda Puntland iyo magacaabo waa shaqadii saddexaad ee magacaabo waaxda deeqaha ayaa ka horeysay waaxda maamulka ayaa ku xigtay maantana waaxda maamulka wasaaradda haweenka runtii shaqo xumo layguma baran aad iyo aad baan maartay shaqada si fiican wixii anaga dhinacayaga Ilaahayna siinsiiyo aan uga qabanaynaa aad iyo aad ayaad u baahantihiin si fiican maanta Cabdirasaaq shaqada u sii haysay halkii aad maartay geysay baan ka sii dhaqaajinaynaa. wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska ayaa soo dhaweysay agaasimaha cusub sidoo kale waxa ay suguntisay agaasimihii hore ee waaxda maamulka iyo maaliyadda sidoo kale waxa ay sheegtay in agaasimihii hore uu kaalin qaali ah ka qaatay shaqooyinka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska. xogaa yar dib hadaan u noqdo Cabdirasaaq sidoo ka dhawaajiyay 8 sano ayuu wasaaradda ka soo shaqeynayay waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo 8 sano ma uusan ahayn agaasimaha maamulka iyo lacagta wuxuu ahaa 2 bilood. Cabdirasaaq wuxuu ahaa intii ka horeysay laf dhabarka wasaaradda. Bushra Garaasi warbaahinta dawladda Garowe.